aqalka cad ee Washington DC maanta waa la sugu imaanaya kulan xasaasi ah ayaa wuxuu dhex mari doonaa Donald J Trump madaxweynaha Ukraine Zelensky iyo sidoo kale madaxda Europe maanta isku imaan doona horta ninkii Zelensky ahaa wuu soo degay awar insiye wuu soo degay goor diyaaradiisa way timid wuxuu ku jiraa hadda qol kamid ah qolalka aqalka cad uu ku jiraa asaga iyo Donald Trump laga yaabaa daqiiqadaha soo socda shirir gooni ah inay yeeshaan ninka odayga ah roog cas looma dhigin xitaa madaxweyne Trump ugama hortagin eelaboorka oo ma soo dhaweynin sida tii Putin uu ku sameeyay Putin waa ogeedeen aad iyo aad loo hadalhayay labada madax oo gacanta isgelinayo sheekaysanaya iyo diyaaradihii la kiciyay miigagii dowlatuska military Trump uu sameeyay ninka odayga ah xitaa eelaboorka looguma hortagin guriga ugu maalahay waxa hadda qadka ku soo jiro kaaga sii daran waxa raba qaybtan inay indhaha ku heesaan waxa hadda qadka ku soo jiro kuwa Europe ahay madaxda Europe oo lacbeeshka ahay ha ugu horeyso gabadha Talyaaniga ugu horeyso waxa kale oo ku xigo Poland waxa kale oo ku xigo Jarmalka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ayagana way soo socdaan marka su'aasha isweydiinaysa waxay tahay maxaa laga wada hadli doonaa maxay tahay qodobada miiska saaran si aan u fahanno qodobada miiska saaran waxa idinka rabaa marka hore inaad dib ugu laabano 3 maalin ka hor kulankii dhex maray Donald Trump iyo soo kale Vladimir Putin wuxuu soo hordhigay Trump qodobo hadda soo bixinaya wararka dhan hadda kala cadaadeen Vladimir Putin wuxuu yiri Trump uu dhigayso waxa ka rabaa sideedaba Ukraine iyo NATO in la kala fogeeyo dab iyo benzin in laga dhigo la kala fogeeyo aysan is arkinba Putin ayaa qodobkaas soo hordhigay wuxuu kale ku xijiyay ninka la yiraahdo Vladimir Putin oo uu yiri Trump waxa ka rabaa amniga Ukraine in adiga oo Mareykan ah in lagu xil saaro guarantee ka noqotid oo maxay dhijir article 5 xitaa sida NATO oo kale barnaamij NATO la mid ah NATO waxay qabtaa barnaamij loo yaqaan article 5 oo macnaheedu uu yahay Ruushka haduu taabto Estonia Latvia Poland Lithuania wadamadaas wadan alaale wadankii NATO ka mid ah haduu Ruush taabto in NATO dhan dagaalka ay galayso sheega noocaas hadda la yaaban tahay qodobkan hadda idin sharxay waxa rabaa wax yar in idin fasaxo Witkoff ninka ergeyga oo ah Donald Trump arrimaha Europe iyo bariga dhexe oo arrinkaas hadda idin sheegay article 5ka oo Mareykan laakiin NATO aan ahayn marka hore inuu noo sharxo were able to win the following concession that the United States could offer Article 5 like protection which is one of the real reasons why Ukraine wants to be in NATO. We sort of were able to bypass that and get an agreement that the United States could offer Article 5 protection, which was the first time we had ever heard the Russians agree to that. Way qodobkaas oo ayagaysa Soomaaliya Witkoff wuxuu ku leeyahay Putin wuxuu aqbalay barnaamijkan article 5ka ee Mareykan in uu maamulo inta ka dhiman hadda qariirada marka fiirsid qaybta gaduudan oo dhan Ruushka qaadanayo la tagaayo dhulkiisa ka mid noqonaysa qariirada Ruushka sidaadaba dib loo xariiq doonaa oo qaybtaas ku tirsanaa qayb kale soo hartayna Mareykan mas'uul ka noqonaa Europe mas'uul ka noqonayso oo article 5 Mareykan ku xukumi doonaa oo hadii diyaarad drone oo Ruushka mar dambe ay soo gashay Ukraine in ay ka tafan doonto Mareykan iyo Ruush waxa yaab leh Putin hor sheekadaas wuu aqbalnay Putin ay isfahano waa siyaasi la soo macaamilay 5 madaxweyne oo United States Mareykan ah ka soo bilaw Clinton ka soo bilaw Bush ku xiji waxa ku xijisaa Joe ninka la yiraahdo Obama ku xiji Joe Biden ku xiji ilaa kan hadda jooga Donald Trump labadii xilli uu qabtay ninkaas Putinaas intaas madaxweyne wala soo macaamilay marka sembri asaga leh wax gaado saga in la gaado way adagtaa marka qodobkan waxa uu ka damacsan yahay sheekadaas dhan hanoo dambeeyo laakiin madaxda Europe ka xanaaqi doonto inta sorto elephant Soomaa marka Putin aniga ahaan Soomaali ka boo ahaan hada fikirkayga yar ku darsado Putin dadaalka ugu weyn uu galaya waxay tahay Mareykan iyo Europe in la kala fogeeyo asaga dan dhinac walba ugu jirta dan military dan dhaqaale dan nooc walba ah asaga ilaa amarkiisa hadda guul weyn uu ka gaaray dagaalka Ukraine waxay tahay Mareykanka iyo Europe la kala fogeeyay kala taga asaga wuu ogyahay inuu qajajacsanayo Europe oo wax awood aysan lahayn jileec ay yihiin tan iyo 1945 tan iyo dagaalka labaad ee adduunka markuu dhamaaday Europe Ingiriiska hadda sargaalka ugu weyn ee militariga maal dhaxal soo hadlay wuxuu dhahay meeshii ugu hooseysay ayaa joognaa wadamo Afrikaan ah anaga ciidan badan markii si loo fiiriyo Turkey anaga tababar iyo kii badan marka ciidamadooda hoos u dhaceen dadkan Europe waxa waaye dhaqaalihii iyo lacagtii intay burinayeen arrimaha militariga ammaanki
waa ka saxdeen intaas milifant marka putin dantiisa waxaa waaye kala jar divide and conquer allaha kala qaybi maraykan iyo yurub inta soo hartayna qabso waaya ama maraykan trump waa iska taqaana asaga trump shaqadiisa ma aha ma yurub hala cuno hala qajajacso asaga waxaa waaye dhaqaalahaas iyo wixii macdan ula soo baxaayo iyo awoodiisaas ina dalkiisa iyo danihiisa interestihiisa adduunka aan soo fargashin asaga intaas u tarin putin wuxuu yiri maraykan oo aniga adigu ma soo fargashanay gujiskaada hadaa rabtid ruushka agtiisa keen ee intaan la ii sameeyo you understand that waaya shakadaasoo dhan xagga noogu reex waxaa rabaa qodobkii putin iyo trump waa elefantina umalaynaya macnaha meeshaas putin qodobo wataa danuu wataa maraykana danuu wataa turkina waxay noqotay hilib la kala qaybsanaya noqotay niyo ani qaybtan oo xoogaa dufunta leh ani isii mafahad kuruska leh ani isii qaybtan kalena ani isiyaa ka dhac zelniski maanta waa joogaa white houseka saan waay madaxu xoqonaya kuwa yurub baa soo socda waraa idin siiye yurub way soo duday hadda markay caawa imaato horta iyaga waxaa hor yaalo su-aalo fara badan maxaa u qabateen ukraine labadoo gantaalay siiyeen afartoo ciidan oo tababaray geeyeen waa la qajajacsaday ruushaa qaqabsaday wax alaalay wixii ingiriis iyo faransiis iyo jarmal iyo poland ay direen oo gantaalada xooliga dheereeyo iyo tababar iyo wixii o dhan ruushaa qajajacsaday yurub marka option hadda toos ah ma hayso aan ka ahayn inay isku dayaan inay dagaal toos ah la galaan ruushka taasoo ay ku guuldaraysan doonaan diblomaasiyadna meesha uma taalo putin wuxuu taagan yahay ani kuwaan maba la hadlaaya waa ciyaal tabar iyo waxba aan lahayn waa lama hadlaaya maraykan oo adaa laan dheeraa adaan kula fadhiisanaya taagan trump marka caawa wuxuu soo bandhigi doonaa wuxuu dhihi doonaa dhegeyso yurub ay dhegeyso nimiyow meesha tabar kuma haysin putin wuxuu usoo socdaa romania dad afruush ku hadla romania ku nool uu usoo socdaa ninkan video idinku haya laba mid soo gala war ama isdhiiba gacmaha kor u taaga ruush iyo maraykan ha idin maamulaan fiiriya ama tabar isku yeelo ninkan la dagaalama ukraine idinka la wareega حتى فرصة هيستين 6 سنة اسكدبا أورد يكولن آن دمانين لندن كدعو باريس كدعو برلين كدعو ميل والبا كل مين حتى روما كل مين ما راح يجرب واحد اي سوكر ايه هبرتي بجرت هذا ترى بس اساسي ابو واحد ميل وما سعودان تبرنا مله قوضه دي قيلدودن ويب بدتي نينك بوتين احنا انت اسكي علين كرتو oo hadda soo jeedo oo taagan ma jirto Trump wuxuu taagay aniga Europe waa ka fogaa badan oo dhaxayso Atlantic Ocean marka ninkan wixiis xaq jacso ha qaato article 5 ka aniga Ukraine aku maamulo dhaqaalaheeda aska dhuuqo Europe idinkana aamusa meeshiina fariista haduu Ruush soo daga Romania idinka idinta la dagaalama war kulanka xasaasi waa caawa waa wixii update ah arki doona